dhawaan booqasho inuu ku tagnay deegaanka Jirjir oo 15 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan magaaladan Boorama ee xarunta gobolkan Awdal waxay indhahaygu soo qabteen baahiyo kala duwan oo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ah. Maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmadaasi Jirjir ayaa waxa uu ka waramay dugsigaasi xilligii la aasaasay iyo baahiyaha xoogan ee dugsigaasi soo food saaray. dugsigan taariikh ahaan waxaa la dhisay oo la bilaabay community bilaabeen أفريقيا كل سؤال ولا أفريقيا لا شيء سؤال كله نباري لوط كي هو هرية إنه بيروح على سؤال نبضي إنه كل مكانين سؤال كسيلا إنك غير جامعة يقوى بحيوة كتير معلمين تو خير معلمين يقفران ما يستو أو حرب بحرين معلمين تاني لا يكرميو سؤال بقى سنة شل معلم بقى معي أو أفرق يسأل برشة وحكي قطعتان الحمد لله ككلمة قطعتها تيه راجل مركوها formal education كقوة قبل السنة أساسا ممكن تجتهوا بقول يسأل عشان أرضي الجيب بالله هاي الجيل الطباع أو تويا أو كم قلمك إنك بركة واحد شوجا معها واحد شوجا أفرط بقول يا كنت بايم كيلو شو صار وده تكون لك واحد مصيني باهيات واحد صيني معها بيها سكرة أو باهية الكوباية هي بسرعة صدق فصل مكتبة كبركا حفتي لها بوابة وحيواص بانو مدان فرنسية وفرس بريورتي gudoomiyaha deegaankaasi Jirjir ayaa isna waxa uu ka sheekeeyay xaaladda deegaankaasi Jirjir isagoo shaaciyay in deegaankaasi ay ka jiraan baahiyo dhanka caafimaadka iyo waxbarashadaba. waxaan doonaynaa in loo qabto iskuulka Jirjirka in loogu daro saddex maqsin oo waxbarasho oo naga dhiman maadaama meel ku naalo dhaxoon Boorama iyo dhaweyn magaalo kale mid kale waxaan doonayaa labaad in deerna loogu sameeyo maadaama meel taagan ku yaalo dabaylo ay dumeeyaan in deerna loogu sameeyo tasaddexaad waxaan doonayaa inaan macallimiinta iyo maaragtay nidaamkii waxbarasho loo kordhiyo macallimiinna loo keeno afraad waxaan doonayaa beeraha in wax looga qabto 80kii baa la xidhay 80kii kadibna way bacad saarmeen marka sidaas ay yar bayaan oo inagii dib habeen lagu sameeyo oo loo habeeyaan doonaynaa dhakhtarkan aan joogno waxaan doonaynaa inaan wax looga qabto oo 3 jeer guddiyo 3 jeer baan naga samaysanay waka wariila maxay telefoonkii inaan wax looga qabtaan doonaynaa hadii dawladii tiyaatiin iyo dadkii wadanka u dhashayba marka waxa jira balay baan lahayn fiican oo ka qodanay balayna bacad saar iyo wuxuu keenay hawl badan in looga qabto doonayaa waasmay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee deegaankaasi Jirjir ayaa iyaguna waxa ay cabireen dareenkooda maanta iyo xaaladda ay wax ku baranayaan. أنا سبعي تاجر ما هي على العيان جالس حتى تسيقوا صار حي ترجع ما هي سبعي باهي وإحنا سبي العام jiif caaqil Cabdi Axmed Salsal oo isna ku sugnaa deegaankaasi Jirjir ayaa waxa uu ka sheekeeyay deegaankaasi Jirjir taariikhdiisa iyo heerarkii kala duwan oo soo maray isagoo baaq u diray jaaliyadaha goboladan Awdal iyo Salal ka soo jeeda inay gacan ka geystaan horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka ee deegaankaasi Jirjir. waxaan la socday ilaa aasaaskii qabashada dhulkan ragii qabtay ma kamid ahaa maalintii ilaa maanta xoogal baan ku hay إلا 95 كي دكسيجا أو كور بحنيه معمولها دكسيجو 95 كي برضو مسترمي إلا وقت جوا قبيو سداد صوتها كلين لهيدين دتكي يدخل قبل لهيدين دكسية دو عاول لهيدين عافبات دو عاول لهيدين يدرك الجامعة دو عاول لهيدين يدرك السكندري دو عاود لهيدين بقرصة تربوش على حياة هذا الاسكودر هو الاسكود تجنوب بدية دبدة هذا $10 $5 هذا ميركور ده بالشيء وحول بوي دبالي. عبد الفتاح أحمد، صومالي channel، مقالة بورما.